الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalayaal su-aalihiina la soo weydiin jiray ayaan bartamaha uga jirnaa. waxaana la soo weydiiyey nin ayaa wuxuu dhahay, xaaskayga haddii aan dabada uga tago towba ma leehay? taas ayaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaan usoo gudbino bulshada qaybahooda kala duwan. falwad'u fi duburi muxaramun wa munkar yuujibu lacna. qofka inuu xaaskiisa uga galmoodo xagga dambe waa xaaraam, waana wax foolxumo ah. taasuna waxay keeni kartaa in ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa uu ka durjiyo ama uu ka fogeeyo. abi hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu inuu rasuulka uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam, malcuunun man ataa imra'atahu fii duburiha. wuxuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam, waxaa lacnad ama naxariista laga fogeeyey qofka ninka ragga ah, waa yacni naxariista ayaa laga fogeynaa hadduu uu xaaskiisa uu ka isticmaalo xagga dambe, ayuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam. xadiidkaas waxaa warinaya abu daa-uud. sidoo kaleeta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay, man ataa kaahinan fasadaqahu bimaa yaquul. qofkii maaragtay u tago qof faalshow ah oo faalka samaynayo ee u rumeeya wuxuu leeyahay, aw ataa imra'atahu xaa'idan, ama xaaskiisa u tago iyadoo dhiig qabto, aw ataa imra'atahu fii duburiha, ama xaaskiisa xagga dambe ka isticmaalo, wuxuu nabigu yiri faqad bari'a bimaa anzala allahu calaa muxamed. nabiyullaahi maxamed wuxuu dunidan loola soo diray waa qof bannaanka ka jooga, ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. xagga towbada, yacni walwaajibu calayhi an yatuuba ila allahi min hada alamr. qofku waa inuu uga toobo keeno arrintaas ilaahay subxaanahu watacaala. towbo run ah weliba waa laga aqbalayaa. takuunu biliqlaaci min adembi, waa inay arrintaas uu faraha kala baxo. midda kaleeto, wanadamu cala alwuquuc, inuu mar kale uu ku dhaco waa inuu ka qoomameeyo, uu ka shalaayo. iyo walcasmu calaa cadami alcawda, iyo inuu go-aansado inuusan dib dambe uusan ugu laaban. intaas haddii uu sameeyo, towbadiisi waa la aqbalaa insha allahu tacaala. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koowaad.